حابتي شرفت له سود هذا وحن الله هاي مركو ورئيسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوتيوب كان دعوة نيسين وعثمان قاضي أوفيشال. فضلا سبسكرايب يسار يوتيوب كذا يقول ديرجلي صوت دياريو في ذوق روح بدن أدنى أو بهشي. أنا أقول ديردو إن صوت دياريو في ذوق روح بدن فضلا يقول ديرجلي. ولكن عثمان قاضي أوفيشال يوتيوب كهلو كلو كيو سبسكرايب لو صار ولو ديرجليو. سبسكرايب بدن ما هستي. فيوز بدن ما يستي يوتيوب كي وسوق هاي جنرال كان وسوق هاي جنرال كان هلا كلا كعيو واحد كير دودين فيديو قروح بدن إسات أدوه هشين أنا إذا صوت دياريو ما أنتو حنا هيا فيديو كسابسن دتك استعمالا ماندوريها ورماندوريها لوقت بدن أيوكو هيا دتك إن الصومالية تدين نقول لنا كدومر كادين نقول نترجع وحيالا أن لودو القادم كرين دتك ودوين كإسكجيفان لوقتيسن عرور تيار كيكوجران oo aan qaangaarin oo 10 sano jira 20 sano jira qaarkood qaangaarin hadda video waxa idin hayaa ku saabsan dad waaweyn oo maandooriya isticmaala xashiiska wax loo yaqaan qamriga oo kale alcohol chocolate day noqon leed videogaas aad daawan doontiin waxaan idin leeyahay dadkaas loo gargaaro dhibaatada laga saaro dadka lacagta ilaahay siiyay waxay isticmaalaan haysta dadkaas iskuulada hala geeyo dugsiyo quraan hala geeyo dhaqan cilin hala geeyo dadkaas diinta hala baro waxyaalahaas laga zuuliyo jirkooda laga saaro waxaas wax loo qaadan kara male deedkaas waa dad ka soo jeeda Jowhar ee Shabeellaha Dhexe waa dad maandooriyaha oo dhibaato u geystay oo jirkoodii baaba'ay oo rafaaday oo darbi jiifay yihiin marka waxaan idin leeyahay aan isku damqano aan isku gargaarno asxaabteeda aan isku gargaarno videogan ila daawo fikirkaaga ka soo dhiibo waana ka hadli doonaa waan idinku dhiirigelin doonaa inaad dadkaas u gargaartiin maandooriyaha xashiishka waa mid dhibaato ku dhex abuuray maskaxda dhalinyaro ku isticmaasha gudaha magaalada Jowhar kuwani waa dhalintii dalka u baahnaa in ay u shaqeeyaan balse maankoodii maskaxadeed waxa la dagay cudur ay gacmahooda ku kasbadeen gidaarada Jowhar ay qaybtood la fadhiyaan cabista xashiishka inkastoo mararka qaar laamaha amniga ee degmada ay soo qabtaan dhalinyaradan maskaxdooda ku miirdoonsantay xashiishka qaarkood waxa la geeyaa goobaha caafimaadka ee magaalada agaasimaha isbitaalka dhimirka ee Bilqeer Maxamed Muuse Jilcow ayaa sheegay in 80% dadka xaruntiisa caafimaad la keeno ay yihiin dhalinyaro maankooda uu dooriyay xashiishka kuwaasoo laga kala keenay qaybtooda degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu sidoo kale agaasimuhu uu ka hadlayaa saameynta uu leeyahay maandooriyaha xashiishada waa midda ugu daran ee hadda hadii la yiraahdo adduunyada aad wax u yeesho hadda dadka ku jiro isbitaalkan waa 17 qofood laba ayaa haweenka ah labada haweenka ka mar dhawaa la keenay adiga mid ayaa bil ku jirta mid kalena waxay ku jirtaa adiga 5 biri camal labadooda alxamdulillah hadda aaday u fiican yihiin haweenka inta kale oo dhalinyarada ah oo meeshan ku jirto 13 ilaa 14 waa xaalad balwadeed marka 80% waxa waaye xashiishka taliska booliska degmada Jowhar ayaan weydiinay waxa iyaga kala gudboon la dagaalanka xashiishka waxaana su'aashaas aynu hor dhignay taliyaha saldhigga booliska degmada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Anjeex tilaabo cad ka qaadayna ciidan ku hortay buu tilaabo cad ka qaadayna ma ogolaanayna wax allaala wixii maaragtay muqaadarada oo ummadda dhibaato u keenayo ma ogolaahayno marka waxaan leeyahay ummadda reer Jowhar oo ka faa'iideysanay fursadda waxaan leeyahay sida wanaagsan oo aad nolol shaqaysaan aan ka codsanay in noosiil ma jibartaan nolol shaqaysaan yani ummaddaanu ummad yani islaam waaye uma baahna yani maaragtay inay dhibaato yani waxyaabo xun lagu barin habaabiyo waxa fiican yani tacabkooda YouTube ka daawanaysan Usman Qaaday official YouTube kale subscribe sareeyo oo liigu dhirgeliyo video waa daawateen waad aragteen dhibaatada wiilashaas haysata maamulka iyo kan heer federaal haday noqon dadkaas dhibaatada ku jira in wax loo qabto loo gargaaro oo la isku damqado waayo hadii la isku fiirsado dhibaato kala imaanaysa maamulka Hirshabelle waxaan leeyahay kan degmada iyo kan gobolkaba dadkaas inay u gargaaraan ay u fidiyaan waxbarasho haddii noqon dhaqan cilin haddii noqon dhan walba iyo quraanka in la baro iyo diinta in la baro masaajidada lagu tarbiyeeyo dadkaas oo jirkooda laga saaro sunta ay ku jirto xashiishka iyo qamriga iyo qashinka iyo cabaan dadka laga saaro waxyaalahaasi waan idin salaamay waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadkan reer Jowhar waa dadka reer tacbata waa dad xoolaleeyay inay yani maanta waxa wanaagsan dadka lagu wacyigeliyo wixii xunna laga reebo oo munkarka laga reebo annaguna yani waa hawsheena ciidamada booliisku inay xumaan reebaan
wanaagana dadka faraana hawshadu tahay odayaasha dhaqanka ee degmada Jowhar door noocee ah ay ka qaadan karaan wacyigelinta la dagaalanka maandooriyaha xashiishka oo u muuqda mid dhibaato xoogan ku haya dhalinyarada isticmaasha kuwaasoo ku dhex nool bulshada dhexdeeda waa kan nabadoon Jiis Culuw Beerey oo ka hadlaya arrintaasi waxyaabaha maandooriyaha dalku soo batay oo caruurtii waddanka liig u naqalaheeday ku abuuray inay khalkhal gasho naftoodii iyo macal bulshada inay dhibaateeyaan markii ay dhacday in degmada Jowhar qayb ka mid ah tuulooyinkeeda amba qaybaha degmada Balcad ku aadan qaybaheeda kala duwan markii ay dhacday in lagu beero baalka maandooriyaha xashiishka in lagu beero markii ay dhacday waxaa dhacday dhalinyartii ewalba ayagoo jaadka uu dhibaato ku hayay oo baal taabuu la yiraaho oo afka la gashay uu dhibaato ku hayay haddana xashiishkii inuu ugu darsamo oo xashiishka u fududaado inay helaan haddii qayb ka mid ah degmadii qayb ka mid ah beeraheedii in lagu abuuray ay suuragal noqotay ayay waxaa u fududaatay inay helaan maandooriyaha xashiishka oo ah mid dhibaateeya maskaxda qofka caadeysta cabistiisa waa mid u baahan in wacyigelin toos ah looga sameeyo goobaha lagu iibiyo beeraleyda tacabta iyo goobaha ay ku kulmaan dhalinyarada isticmaasha maandooriyaha Cabdiraxmaan Xuseen Cumar wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar.